duqa degmada Gabiley Maxamed Aamin Cumar Cabdi isagoo xoojinaya dhamaystirka adeegyada caafimaadka isbitaalka weyn ee magaalada Gabiley waxa uu maanta barasaabka gobolka Gabiley duqa degmada iyo maamulka caafimaadka ee gobolku ay si wada jir u dhagax dhigeen dhismo loo sameyn doono xarunta kaydka dhiigga ee isbitaalka weyn ee magaalada Gabiley iyo dhismo kale oo ku lamaankaasi oo loogu talagalay dhakhaatiirta shiftiga ah ee ka hawlgala dhakhtarka weyn ee magaalada Gabiley. dhismahan ayaa waxa hirgelinaysa dawladda hoose ee degmada Gabiley kaasi oo dhakhtarku baahi weyn u qabay isla markaana dabooli doona baahiyo uu dhakhtarkaasi u baahnaa. tuulintii halkaasi ka hadlaya waxa hadaladoodii kamid ahaa bilowgii sanadka cusub ee 2020 ah waxaanu ka dhagax dhigi doonaa insha Allah taala baankii dhiigga oo dawladda hoose ee Gabiley u dhisi doonto isbitaalka iyo qol duty room oo noqon doona qolka shaqaalaha habeenkii shift night-ka galaya ay seexan doonaan ama ku nasan doonaan oo labadaba ay hirgelinayso dawladda hoose ee Gabiley si aanu kor ugu qaadno adeegga caafimaad ee isbitaalka ay ugu hayaan agaasimiye howlwadeennadiisu loo sii dardargeliyo shaqada caafimaadkeenu u hayno annagoo si guudba runtii saa ka warqabtaan gacanta ugu hayno horumarinta adeegyada aasaasiga caafimaadka baanka dhiigga oo aanu lahayn maantana loo dhagax dhigayo oo dawladda hoose ee degmada gobolka Gabiley ay fulinayso. waxa maanta noo farxada inaan ka qayb galno dhagax dhigga dhisme loo sameynayo kaydka dhiigga oo isbitaalku aad ugu baahnaa dhagax dhigno blood banki oo isbitaalku aad ugu baahnaa maadaama oo meeshani wadadan isku xidhay halbowlaha hay'adaha Wajaale Hargeysa sanadka cusub ee 2020 in maanta maayirka degmada iyo xildhibaanada golaha deegaanku ay noo dhagax dhigi doonaan qaybtii kaydka dhiigga oo runtii ah qayb muhiim u ah. halkan maanta waxaynu ku dhagax dhigaynaa sharaf weyn inoo ah inaynu dhagax dhigno laba meelood oo aad ugu muhiima qarankan iyo gobolka Gabiley labadaba xaruntii kaydka bangiga dhiigga ee gobolka Gabiley iyaguna hoolkii ama meeshii ay ku nasanayeen dhakhaatiirta ka howlgalaysa habeenka galaysa shiftiga dhakhtarkan. sidoo kale Sheekh Faarax Cali Cismaan oo wakiil ka ahaa Faris Falaax Al Cismaani oo ah muxsin reer Kuweyda waxa uu talaagada meydka ku wareejiyay oo ay ugu deeqeen isbitaalka weyn ee magaalada Gabiley. talaagadani meydka ee maanta uu Sheekh Faarax soo gaarsiiyay isbitaalka weyn ee magaalada Gabiley ayaa baahi weyn loo qabay kaasi oo lagu daryeeli doono badqabka meydka aan la aqoonsan. ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay Sheekh Faarax Cali Cismaan oo ahaa wakiilka talaagadani soo gaarsiiyay isbitaalka weyn ee magaalada Gabiley. Sheekh Falaax Al Faris oo muwaadin Kuwaiti ah oo la soo gaarsiiyay talaajadaas iyo talaajado badan iyo howlo badan gobolka khaasatan gobolka Gabiley howlo badan ka qabtay aad buu u mahadsan yahay. waxaan leeyahay anigu jazaakallahu alf khair. halkan waxaa taala talaajad 4 jambara oo 4 mid qaadaysa. waxaan ku wareejinayaa mafaatiixdii talaajada barasaab iga guddoon. saad arkasaan runtii maanta waxaynu halkan kala wareegaynaa walaalkeen Faarax talaagadii meydka oo isbitaalka guud ee Gabiley ugu deeqay nin muxsina oo reer Kuweyda oo runtii saaxiib dawla ah Soomaaliland oo deeqo badan iyo meelo badan wax badan ka geystay. mudane Faris Falaax Al Basmaan oo nin Kuweyd u dhashay maalqabeena hore talaagada meydka wuxuu geeyay isbitaalka Wajaale wuxuu ugu deeqay isbitaalka Hargeysa maantana waxaynu ka gudoomanaa tii ugu tala galay isbitaalka Gabiley. maantana isbitaalka maalin wanaagsan buu taayo 3 adeeg oo runtii isbitaalka muhiim u ahaa baynu halkan ku daboolay oo ay talaagadii meydku kow ka tahay oo meeshii kaydka dhiigu 2 kay tahay iyo qaybtii dhakhaatiirtu ay heeganka ku galayeen 24 saac si isbitaalka dhakhaatiirtu ay ugu adeegi karto dadka sidii loo dayactiri lahaa ee bahasha loo hagaajin lahaa looga faa'iideysan lahaa ilaa inta labada bilood maanta oo kaliya u dambeysay intii ay dawladda soo kaliya kale waxba kaafimaysa laakiin keena aqooyaanka iyo keena taajirkiiba in danta caamka ka shaqeeyaan sidaa Faarax oo kale wuxuu aad ugu baahnaa talaagan meyd maanta oo halkan ka gudoonay Sheekh Faarax oo ka wakiila
falaax alfarisi haddii ay noqon lahayd ceelasha iyo haddii ay noqon lahayd tallaajadaha meydka iyo adeegyada kale runtii muxsinaadka ah. runtii faarax iyo saaxiibkeen iyo walaalkeen alfarisi waxay naga furteen hawl inagu bannaanayd oo runtii gobolku u baahnaa beedqab waana kala wareegnay. faarax waxaan leeyahay adigana jazaakum allah khayr haddaanad adigu hormood ka ahayn hawl. waa maxamed cabdi cumar maxamed wadin warka warbaahinta SBC gobolka Gabiley.